arrintaasi reer ma aha cabdimaalig dulmi buu ku xiran yahay saacadan laga bilaabo dulmiga reer ma sameynin qabiile lama sameynin laakiin waxa arrinta sameeyay waa maamulka baa eeda qaadanayo qabiile ma qaadanayso waxana waa dhow yahay meel dhowna wuu maraya hadda arrinka la sugay waxa culimadii wadanka ayaa laga sugaya inay bayaan ka soo saaraan hadii ay ka soo saari waayeen taariikhda xudsi doonta umaduna marxatiba ka noqon doonta marka waxay noqon doonaan culimadii culimo meeshii looga baahnaa inay ka hadlaan ana ka hadal bay noqonayaan marka anu hadalkayga waa isdul taagaya waxaan qabaa arrinkan in sida ugu fudud ee lagu dhameyn kara ay tahay in maxkamadda hadii ay hal sii daayaan oran maayo laakiin waxaan oranayaa hal ixtiraamo sareynta sharciga maxkamaddu waxay tiri ninka dambi lagu maayo micnaheedu waxa weey hal sii daayo eediisina xeer ilaalinta Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon tan iyo intii uu xabsiga ku jiray waxa jira dad yow tiro badan oo ka hadlay balse haatan culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa laga warsugayaa in Cabdimaalig ay si toos ah arrinkiisa uga hadlaan isla markaana ay arrintan shaaca ka qaadaan waxaan idin haynaa muuqaalo tiro badan oo aanu ka haynaa dad yow kala duwan isla markaana shaaca ka qaadiya dulmiga Coldoon ku xiran yahay sidoo kale sababaha waaweyn ee loo haysto balse intaana ku soo bandhigin halkan waa kanaalka Sixinta Wararka dib aad ku cusubtahay ku soo biiro kamid noqon boqolaalka kun oo qof ay si joogto ah ugu xidhan kanaalka Sixinta Wararka isu soo laabasho wanaagsan saaxiibayaal Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon waxa uu xiran yahay in ka badan 195 casho oo saaxiibayaal loo tirinayo inuu dulmi ku xiran yahay isla markaana uu jirin wax laala iyo waxa uu geystay maxkamaddu maalintii Khamiistii ee toddobaadkii hore ayay ahayd kadib markii ay sheegtay in Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon aan lagu haysan haba yaraatay wax dambiya balse haatan wax soo galaysa Khamiisteedii kale waxa uu xiran yahay muddo ka badan 8 cisho oo dulmiya isla markaana uu xabsiga ku jiray saaxiibayaal xirlaalinta ayay dadku inta badan ku eedeynayaan in xabsiga ay Cabdimaalig ku sii haynayso isla markaana iyadoo ay xabsiga Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon ku sii cadaajinayso si kastaba ha noqotee waxa jira dad yow kala duwan oo siyaabo waaweyn uga hadlay xariga samafal Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon sidoo kalena sheegay in Cabdimaalig uu haatan ku xiran yahay dulmi la yaab leh saaxiibayaal bal arrintani halka ay gaadho iyo sidoo kale arrinku halka uu ku soo gabagabooyinta ka warsugaysaan halkan waa kanaalka Sixinta Wararka subscribe saarta sidoo kale nala daawo muuqaalo badan oo laga hadlayo arrinta Coldoon halka ay sal dhigan doonto صحفي سماوة فله Cabdimaalig Muuse Coldoon oo in muddo ku xiran xabsiga oo Khamiistii aan soo dhaafnay maxkamaddu ay tiri ninka wax dambi ah loo ma hayo marka anigu waxaan talo ku soo jeedinayaa marka koowaad in xorriyadii Cabdimaalig sidii maxkamaddu u tiri dambi loo ma hayo ee oodaha laga qaado in oodaha laga qaado cidda abiil ka qaadanaysaana xor weeye xaqna way u leeyihiin isagoo dibadda jooga in abiilka laga qaato laakiin mar haddii maxkamaddu ay tiri dambi loo ma hayo maxkamadii bay meel ka dhac ku noqonaysa qofka ay tiri waxba looma hayo in haddana xabsiga lagu sii hayo xabsiga lagu ma sii hayn karayo qofku haddii ay maxkamaddu tiraahdo ninka dambi looma hayo abiilka qudhiisa ayaa wuxuu noqonayaa hal boolihi nirag xalaal ma dhasho haddii abiilkii la qaadanayo loo sii xidho qofka go'aankaasi wuxuu noqon karaa go'aan siyaasadeed buu noqon karaa ama labaadka soo baxa marka anigu waxaan leeyahay sareynta sharciga hal la ilaaliyo anigu cidna oran maayo Cabdimaalig hal sii day laakiin waxaan leeyahay hal ixtiraamo sareynta sharciga wuxuu qabana cid walba uu hoggaansanto cid walba ha aqbasho hadii uu qalaal yahay hadii uu macaan yahay sidoo kale culimada kala duwan ee dalka ayuu ugu baaqayn arrintan ka hadlaan maadaama samafal Cabdimaalig Muuse Coldoon oo hore u codsaday in lagu xukumo kitaabka Quraanka Kariimka dhinaca kale masaladu Cabdimaalig ka hadlay Muuse Coldoon waxa weeye wuxuu yiri kitaabka Quraanka aniga hal igu xukumo culimadii wadanka joogtay qudhoodu waxa looga fadhiyay inay ka hadlaan arrinta Cabdimaalig Muuse Coldoon inay tahay waa mas'ala diini bay noqotay inay arrintaas ay sax tahay inay qalad tahay inay ummadda u bayaamiyaan iyada qudheedo waa kaalin banaanaatay oo loo baahan yahay in la buuxiyo waayo maxkamaddu waxay sheegtay Cabdimaalig wixii lagu soo oogay inay yihiin waxba kama jiraan aanan loo hayn cadeen ku filan oo Cabdimaalig lagu ciqaabo isla markaa Cabdimaalig wuxuu yiri aniga kutubka Quraanka hal eega marka culimada madaxa banaan ee imaamada masaajidada iyo culimada waaweyn waajib baa saaran inay arrinta bayaamiyaan ummadana u bayaamiyaan taariikhduna waa qori doontaa waxa dhacday marar badan aanu aragnay hudheel laga hadlay oo la yiri hudheelka muusig baa lagu garaacay hudheelka habla qaaqaawan baa joogay culimadu way ka hadlaan waxa hal la joojiyo halka hal la joojiyo laakiin arrintan waa mas'ala diini ah waxay uga hadli waayeen wallahi anigu garan maayo
maanta oo kalena diintu hiil u baahan tahay haddii uu qaldan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi walaalka laba goor buu hiili haddii uu qaldan yahay uu hiili oo khaladka ka jooji haddii laga qaldan yahayna dee khaladka laga joojiyo dheh marka haddii cabdimaalig qaldan yahay inay yidhahdaan cabdimaalig masalada diinida uu ku qaldan yahay ayaddaa iyo aayaddaasaan u daliishanaynaa iyay ahayd hadduu saxsan yahay ay yiraahdaan cabdimaalig waa saxsan yahay oo aayadda iyo cabdimaalig haysta tafaasiishiisa wata cadeymihiisa wata ninka faraha laga qaado waayo arrintii lugta waxay ku maratay mas'ala diini waxyaabaha mudan way in laga hadlo waayo waxyaabo kale waxaan u soo taagneen maalmo laga hadlayo waxyaabo kale oo u qalmin in laga hadlo oo laga hadli jiray arrintan oo ka culusna cidna ka hadli mayso marka anigu waxaan leeyahay arrinta cabdimaalig muuse coldoon haddii ay maxkamadii ku dhawaaqday inuuna dembi aanan loo haysan eediisiina ay waxba kama jiraan ku tilmaantay in xorriyadiisa loo soo celiyo isagoo dabadda la joogana xeer ilaalintu ay wadato dacwadeedii ku soo ogto haddii damaanad loo baahdana damaanad laga dhigo haddii wax kale loo baahdana maxkamad iyada garanaysa laga dhigo oo ninkii uu baxsanaya la heli maayo xaq bay u leeyihiin inay damaanad ka dhigaan laakiin waxaa sharci ah in maxkamaddu haddii ay ku dhawaaqday in uuna dembi lahayn in ooda laga qaado oo isagoo dabadda joogo maxkamaddu ay ku socoto eediisuna ay ku socoto sidaas iyay sareynta sharcigu muhiim ku tahay waxaa aada iyo aada u mudan maxkamadii go-aanka cadaaladda soo saartay waxaana rajeynaynaa yacni somalilan cadaaladeedii maxkamadaheedii aada bay u wanaagsan yihiin oo haddaba waanu aragnaa inay go-aanada noocan oo kale ah ay go-aanka gaadhayaan go-aankana runtii rag badan baa waxay leeyihiin arrintaa waa lagu ammaanayaa annaguna waanu ku ammaanaynaa haddaan nahay dhinacii xuquuqul insaanka marka waxaan leeyahay arrintaas taxadir laha loo eego arrintaa ayaana wadadeeda laga weecinin arrintaasi reer ma aha cabdimaalig dulmi buu ku xiran yahay saacadda laga bilaabo dulmiga reer ma sameynin qabiile lama sameynin laakiin waxaa arrinta sameeyey waa maamulka unbaa eedda qaadanayo ee qabiila ma qaadanayso waxaana waa dhow yahay meel dhowna wuu marayaa hadda arrinka la sugaya waxa way culimadii wadanka ayaa laga sugaya inay bayaan ka soo saaraan haddii ay ka soo saari waayeen taariikhduna xudsi doontaa ummaduna marxatiba ka noqon doontaa marka waxay noqon doonaan culimadii culimo meeshii looga baahnaa inay ka hadlaan aana ka hadal bay noqonayaan marka anigu hadalkayga waa isdul taagaya waxaan qabaa arrinkan in sida ugu fudud ee lagu dhameyn kara ay tahay in maxkamadda haddii ay la sii daayaan u oran maayo laakiin waxaan oranaya hal la ixtiraamo sareynta sharciga maxkamadda waxay tiri ninkaa dembi laguma hayo ninkaa dembi laguma hayo micnaheedu waxa weeye hala sii daayo eediisiina xeer cabdimaalig isaga lafihiisa uma hadlayna xaqu ku duuban yahay iyo cadaaladiisa iyo wixii uu soo qabtay iyo wax mustaqbalka laga filin baa u baahan in la isgarab taago cabdimaalig xaqu ku duuban yahay shalayna wuxuu u dagaalamayay dadka xorriyadiisa iyo xuquuqdooda iyo dadka dulman inuu codkooda kor u soo qaado dadka jahadu ka luntay jid waliba ka xidhnay buu jid u bixin jiray maanta isagii baa godkii galay waxaan u mahad celinayaa kow maxkamadda hargeysa ee murudsheex oo sheegtay cabdimaalig inaanu wax dembiya lahayn sidaanu filayna bay yeeshay waxaa kaloon iyadana rabaa inaan u mahad celiyo baarlamaanka qayb ka mid a oo iyaguna ku dhiiriday cabdimaalig inaanu col inuuna lahayn inuuna wax dembiya lahayn waxaa kaloo iyaduna mahad saddexaad leh shacabkii ka xumaaday faraha badnaa ee cabdimaalig inuu xaqdarro ku xidhan yahay caddeeyey cabdimaalig ma ahayn dembiile ma ahayn maxkamadda caddaysay dadkiisa caddeeyey annaga caddaynayna wuxuu ahaa samafale nin dadkiisa u heliyuu ahaa waxa maanta lagu haystaana waa cadaalad darro iyo inuu sheegay abaarso meesha la yidhaahdo ee iskoolka abaarso waxaa lagu dhigayaa inuuna wax soomaaliya dana u ahayn la rabana mustaqbalka soomaali meeshii laga soo geli lahaa inay abaarsan tahay somalilanna waxaan odhan lahaa haddaad laba qof oo ajnabi ah oo dhaqan xumo faafinaya aad ka hortegi weydaan caruurtiinnii oo la baray baa yaa ruux walaba aqalka kugu soo geli gabadhaadii iyo wiilkaagii oo waxa ay dadkaasi soo dhoofiyeen xumaanta ay soo dhoofiyeen iyagoo wada oo nin walaba wiilkaagii iyo gabadhaadii lagu soo xambaariyo oo mashiinkii laga bedelay oo waxa weeyaan wixii ay dadkaasi soo dhoofiyeen wada yaa aqalada idinku galaya waxaan leeyahay somalilan shalay toole gruub tiim yar baa shalay idinka qaalib noqday gruubkaasi waxa weeyaan anagu kolkaanu halgabayna onaref dad baa jiray ganacsi aanu ahayn dheeman aanu ahayn oo na gadan jiray ma ahayn dadka ma ahayn shacabka ma ahayn dowladda oo dhanna ma ahayna dad tiro yar buu ahaa dadkaa ganacsigii markuu dhammaaday baa waxaa la bilaabay idinka dhexdiina in ganacsi laydinka bilaabo oo dadkii tayada lahaa oo cabdimaalig kow ka yahay la bilaabo waxaa lagu xogsay culimada
waxgaradkiina lagu xigsiin ganacsigana wuu bilaabnay cabdimaalik baana koow ka ah in gudihiina dhexdiina laga ganacsado haddaad cabdimaalik aynu u ogolaano maanta inuu xabsigaa ku sii jiro waxa weeyaan nin waliba gurigaaga xaqdarrada kugu soo geli adaa tooshka lagu daba qaadi adaa waxaa heegi doonta iyadoo la yidhahdo masaajidada maxaa laga yidhahdaa wacdiga maxaa la yidhahdaa dadka caqliga leh sidee bay u hadlaan dadka soomaalinimada rabaa ee soomaalida ee mashiinka iyo awoodda iyo hanka soomaalinimadii inteeba meelahay joogaan iyadoo saa laydinku ugaarsan baa berri imanaya anigu waxaan leeyahay dad badan baa uu cabdimaalik yaa u kacay laakiin kuma filla maxkamaddii way caddaysay inuuna dembi lahayn laakiin kuma filla baarlamaankii baa sheegay dadweynihii baa kacay laakiin cabdimaalik weli wuu xidhan yahay xilkii shalayna saaraabaa weli ina saaray cabdimaalik haddaynu gamcaha isku duubanno haddaynu dagaalanno dagaalku maaha inaynu xabad ridno maanta waxa lagu haystaa waa xaqdarro xaqdarrada inaynu ku hadallo aynu bannaanka soo dhigno oo in idhaahno waxa lagu haystaa maa xaq wuxuu sheegayna waa run waxa la soo dhoofiyeyna waa waxaan soomaali u cuntamin waxbarasho ninkii doonayo inta mise dugsi baa ka furan tigtigi iyo muxuu ahaa iyo burci iyo berbera waxbaa jira wax meesha lagu qarinayaa jira maxaa looga cumaan maa la soo bandhigo la yidhaahdo cabdimaalik wax cad buu soo bandhigay waxa carruurta loo dhiga ma la soo bandhigo haddaan wax la qarinayaa jirin anigu waxaan leeyahay cabdimaalik nin keligii ama ah waa nin jiha saxa u socda ruuxa fiican walaalkaa waxa damiirkiisu fayow yahay ee waddada saxda ah haddaynu caawin weyno ku aan wadda saxahaynin baa gacanta noogu dhigay cabdimaalik marka maanta heel buu u baahan yahay waxaa heel u baahan xaqaa heel u baahan waxqabadkiisii iyo dadnimadiisa iyo kartidiisa yaa heel u baahan mishiinka saaran iyo awooddu leeyahay iyo soomaalinimadiisa iyo inay maanta xamar iyo hargeysa iyo tigtiga isugu mid tahay baa heel u baahan mishiin cabdimaalik waxaa saaran mishiin wadaniyadeed ku islaamnimo ku karti iyo wax in lagu caawiyo xaqu u leeyahay anigu waxaan leeyahay somalilan maanta khaladkaad gasheen maydaan wadagelin khaladka uu cabdimaalik ku xidhan yahay maydaan wadagelin tiim yar baa ayaa galay tiimka haddaynu u ogolaano inay wixeeda iska sii wadato kulli aqaladay nagu soo wadagelin intay idinka idin soo dhaaftay annaga jigjiga noogu iman doonta aynu u kacno walaalkeen aynu caawinno xaqa aynu sheegno yaan hala dagaalama malihin laakiin xaqa hala sheego hala caddeeyo hala kaco fadhiga hala kaco odayaasha waxaan leeyahay waxgaradku ha kaceen culimmadu ha kaceen ardada iskoolada ku jira iskoolada qumane xaq wax loogu dhigaa ha kaceen hooyooyinka iyo waxgaradku ha kaceen cabdimaalik aan soo dayno cabdimaalik ha loo gurmado cabdimaalik ha loo gurmado kuwa xaqdarrada ku haystana laga siiyay haye cabdullaahi maxaad ku daraysaa bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin horta marka hore waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto halkan shacabka soomaaliyeed dhammaantii damiirka soomaaliyeed ee aan samaanta iyo laabado meel kasta joogaanba waxaan rabaa oo kale inaan mahad u celiyo maxkamadda gobolka maroodi jeex oo sheegtay cabdimaalik samafale cabdimaalik muuse coldoon inuu xaqdarro ku xidhan yahay cadaysay oo go-aankiisii loo fiican runtii laga filnahay qaadatay iyo shacabka ummadda soomaaliyeed ee ka xumaaday xarigga cabdimaalik intaa ka bacdi marka hore waxaan rabaa inaan ilaahay oga baryo dhibane cabdimaalik oo dulmi ku xiran in ilaahay ka sii daayo xabsiga in ilaahay xabsiga ka sii daayo saasaan ilaahay oga baryayaa waana ka rajaynaya in ilaahay naga aqbali doono maxaa yeelay dulmi buu ku xiran yahay waxaan rabaa marka hore horta inaan caddeeyo cabdimaalik nin siyaasi ma waa nin samafala ah waa nin samafala ah oo shacabka ummadda soomaaliyeed dadka muslimiinta way soo filaan waxa xiran cabdimaalik ma aha waa dhibanayaashii uu u gargaari jiray waa wada xiran aqoontii iyo burburkii iyo dadkii caydhaha iyo kuwii aan damiirka lahayn uu u gurman jiray ee wax u qaban jiray sidii loo xiray iyagii waa xiran marka runtii waa arrin aada u xanuun badan oo qof kastoo muslim ah ama qof kastoo soomaali ah oo damiir leh ay dhibaysa xarigga samafale cabdimaalik waa nin shacabka soomaaliyeed oo dhan uu iskugu mid yahay waa nin soomaali ah oo shacabka soomaaliyeed aan kala jeclay oo soomaalinimadu ay deeqdo waxa lagu xiday lagu dhibhayana waxaa weeye seed soomaali u tahay seed ugu gargaaraysaa dadka dhiban waxa wanaagsan seed u aragtaa diinta islaamka seed u faafinaysaa
ayuu mudan yahay isaguna wuxuu mudan yahay inuu samafalnimadiisa uu ku shaqayn jiray si ay tahay uu ugu samafalo mujtamac uu ku nool yahay isagoo aan cabdimaalig oo Muuse Coldoon haba yaraatee ka gelin wadanka Soomaaliland waxa la yiraahdo dembi qaran waxyeelin dembi ka gelin ayaa waxa lagu xiray wax dulmi ah ayaa lagu xiray arintaasuna waxay ku tahay magaca Soomaaliyeed ama magaca Somaliland ama dawladda islaamka ah oo dhanba ahlu tawxiidka ah waxay ku tahay dib ay ku tahay iyadoo lagu eedeeyay arin diin ah oo ka hadlay diin ayuu ka hadlay oo arintaas kuma wanaagsan dhaqan xumada wadanka ka jirta sheekh Cabdimaalig waa nin muwaadin ah oo Somaliland waliba qof kasto muwaadinina xaquuq iyo waajib labadaas leeyahay حقوق بوليه ودين الاحترام ودنكيسا ونبدجليه iyo amaan iyo xuquuqda sugu helaa ayuu leeyahay waajib bوليه hado waxa la wixii wadanka dhibaato u keenaya qof kasto inaga mid yahay rag iyo dumar waa inuu meeshiisa ka awdo marka muwaadinkaas wuu hadlay wuxuuna ka hadlay wax marka uu arkayo munkar uu arkayay waana waajib in la baaro wixii munkar maaragtay ummadda wax yeelaya in la baaro laga hadlo dadkana kama afdheereen inta waa la hadlayo ummadda oo dhamay wax walba way ku hadlaysay marka wadaadkan waxaad moodaa in si gaar ah loo bar tilmaamsan dhowr goor baa la xiray waliba si fool xuno ma garanaysaa aad moodaa argagax leh oo heelkiisii loo dadka dilay qaatilka ah dadkeeda loo ogolaado la ogaado waxay ku sameeyeen la ogaado laakiin maxaan ku dhahay wadaadka kan runtii waa arin naxdin leh oo murugo leh marka madaxweynaha ummadda Soomaaliland madaxweynaha waxaan leenahay ummadda dhan baad mas'uul u ka tahay waa la weydiinayaa waqti yar baan inoo wada haray dhamaanteen oo akhrayno socona waxa weeyaan nooc kasta oo ummaddu leedahay mas'uul baad ka tahay waxaan ku leenahay arinta hoos oo eeg oon ka codsanayna inaad arinta hoos eegto oo ninka muwaadinka arintiisa aan maaragtay loo hoos loo fiiriyo xuquuqdiisa la ilaaliyo